Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Mid ka mid ah asxaabta ayaa wuxuu isoo weydiiyey su'aal sida loo sameeyo muuqaal noocan ah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. Sida loo sameeyo muuqaalkan aniga ayaa kula wadaagi doono, balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka profile-ka saaran aad subscribe inoo saarto, TikTok-gan aad follow inoo dhahdo. Aniga ayaa ku bari doono, fadlan dhammayso muuqaalkan. Muuqaalkan wuxuu ka kooban yahay laba muuqaal. Midka koowaad oo ah qoraalka amaba Qur'aanka Kariimka iyo midka labaad oo ah masjidka. Muuqaalka masjidka oo background-ka ka dhiganay. Marka si aan muuqaaladaas u helno dhammaantood waxaan aadi doonaa Google Chrome-ka. Google Chrome-ka ayaan aadi doonaa, waxaan ku qori doonaa Chrome ayati Qur'an. Marka sidaan u qorto waxa kuu soo bixi doono muuqaalo badan amaba website-yo badan aad ka soo degsan karto aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. Google-ka markii laga soo tago waxa jiro aabyo kale aad kala soo degi karto muuqaaladan sida Pinterest oo kale. Pinterest markaa soo kacsato isla qoraalkii hadda ayaa search gareynaysaa, isla aayada Qur'aan ayaa kuu soo bixi doono. Aayada aad rabto ayaad ka soo degsan kartaa adigoo adeegsanayo Pinterest ayaad ka soo degsan kartaa. Way jiraan meelo kale lagu soo degsado. Markaa ka soo tagno waxaa jiro muuqaalka aan background ahaan u adeegsanayno sida masjidka oo kale. Halkeen ka helaynaa? Google-ka soo kaxso mar labaad. Markaa Google-ka soo gasho isla website-kan qoraalkiisa ayaad ku dhufanaysaa. Website-ka markaa ku dhufato meeshan ku qoran all images ayaad bedelaysaa. Waxaad u bedelaysaa videos. Video markaa u bedesho masjid ayaad Ingiriis ahaan u qoraysaa. Markaa u qorto waad search gareynaysaa markaa search gareyso waxa kuu soo bixi doono muuqaalo aad u fara badan oo markaasi ku saabsan masjidka. Waa ujeedaa masjid background ahaan muuqaaladan u adeegsanina halkan ayaad ka heli kartaa. Markaa ka soo baxno halkan waxaan isla aadi doonaa kadib application-ka la yiraahdo CapCut. Markaas si aan muuqaal qurux badan u soo saarno waxaan isla aadi doonaa application-ka la yiraahdo CapCut. CapCut markaad soo gasho new project ku dhufo. New project markaa ku dhufato masjidka ayaan soo qaadanaynaa marka hore si aan muuqaalka isku dul saarno labada muuqaal. Masjidka ayaan soo qaadanaynaa. Masjidka markaa soo qaadato waa kan loogada CapCut iska dileed. Masjidka markaa soo qaadano waa ujeedaa waxaa u baahannahay muuqaalka labaad oo aayadaha Qur'aanka ah. Ayaga ayaa soo qaadan doonaa. Markaa soo qaadano kadib ku dhufo aayadaha Qur'aanka kadib soo qaado. Waa ujeedaa marka muuqaalka masjidka wuu gaaban yahay. Si aan u dheereyno waxaan ku dhufanaynaa meesha speed qoranta normal. Waa jiideynaa slow motion aan ku dareynaa si aan muuqaalka u dheereyno. Fahanti? Marka aayadaha Qur'aanka ayagana shaashada ayaa la keysiinaynaa. Marka waxaa ku dhufanaysaa meeshan hadda ku calaamadeeyay ayaa ku dhufanaysaa. Meesha hadda ku calaamadeeyay markaa ku dhufato filter ayaad geeni doontaa. Adi meesha doonto oo markaasi macquul ah oo markaas background madow ku baaba'ay ayaad geysanaysaa. Ma fahanti? Aniga hadda kana geysanayaa saa u jeedaba aayadihii Qur'aanka amaba qoraalka cadaanka ah xoogaho meesha oo dhan cadaan ku furan. Marka si aan cadaankan u baabi'ino muuqaalka background-ka adeegsanayna ayaa waxyaabo amaba kis yar oo madow ku furaynaa. Marka aayada background-ka oo masjidka ayaa taabanaysaa. Markaa taabato kadib waxaa raadinaysaa meel meeshan hadda ku calaamadeeyay ku dhufanaysaa. Xoogo yar waa sii yareynaysaa si oo muuqaalka mugdi u galo. Markaas yareys kadib ka soo bixaysaa. Waa ujeedaa muuqaalka sidoo ku soo baxay. Muuqaal qurux badan ayaa soo baxay. Waa ujeedaa sidaas ayaad ku haystaa muuqaal qurux badan. Marka waa soo degsan kartaa. Hadeertaan muuqaalkii ayaa sidaad ku samaystay. Waxaan ka codsanaa almar in aad ila daawato. يا
واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. sidaas ayaad muuqaalkii ku samaystay waana soo degsan kartaa. markaas wuxuu aadayaa google-kaaga. sidaas ayaad tiktok kasoo dhigi kartaa. waxaan ka codsanaa haddii aad wax un aad ka faa'iiday muuqaalkan inaad youtube-ka profilka saaran ama youtube-kan aad subscribe noo saarto.